diblomaasiyiinta ugu sarreeya Iran iyo Saudi Arabia ayaa Khamiistii ku kulmay Beijing iyaga oo ballan qaaday in ay ka wada shaqeynayaan in amni iyo xasilooni lagu soo dabaalo gobolka khalalaasaha badan ee Bariga Dhexe kadib heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda dalka China. bayaan wadajir ah oo loo sii daayay aan iraahday kadib wada hadallo dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdurrahman ama Abdullahi aan iraahday iyo dhigiisa Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan ayay labada dhinac wacad ku mareen inay sii wadi doonaan inay ka wada shaqeeyaan horumarinta xiriirka labada dhinac. labada dowladood ama labada dhinac waxay adkeynayaan muhiimadda ay leedahay in dabagal lagu sameeyo dhaqangelinta heshiiskii Beijing iyo dardargelintiisa ayaa lagu yiri qoraalkaasi loo ballaariyo kalsoonida labada dhinac iyo dhinacyada iskaashiga isla markaana gacan loogu geysto abuurista amni xasilooni iyo barwaaqo lagu soo dabaalo gobolka ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saareen labada dowladood. Tehran iyo Riyadh ayaa ku dhawaaqay heshiiska ay dhexdhexaadisay Beijing bishii March si ay dib ugu soo celiyaan xiriirkoodii oo go'ay muddo 7 sano ka hor markii ay dibadbaxayaal weerareen safaaradda Sacuudi ay ku leedahay Tehran. booqashada labada wasiir ee Beijing ayaa timid iyada oo sidoo kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ay ku sugnaayeen caasimadda Shiinaha si ay madaxweyne Xi Jinping uga hadlaan aan iraahday in uu soo afjaro dagaalka Ukraine. isu soo dhawaashaha lama filaanka ah ee Iran iyo Saudi Arabia ayaa dib u qaabeyn kara xaaladda Bariga Dhexe oo sanado badan ay la degeen rabshado aad u xoogan. labada dhinac aan iraahday Iran iyo Sacuudiga weeyaane waxay ka wada hadleen oo ay si isweedaarsadeen fikrado iyada oo xoogga la saarayo dib u soo celinta rasmiga ah ee xiriirka labada dal iyo tallaabooyinka fulinta ee ku aadan dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha labada dal ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ay ku sheegtay bayaankeeda. telefishinka Saudi Arabia laga leeyahay Al Akhbariya ayaa bahiyay muuqaalada labada wasiir oo isgacan qaadaya ayaga oo hortaagan calaamada labada dal Iran iyo Saudi weeyaan isla markaana dhoola cadeynaya. sida ku qoran heshiiska la gaaray bishii tagtay ee March labada dal ayaa lagu wadaa in ay safaaradaha iyo qunsuliyadaha dib u furan doonaan muddo 2 bil gudahooda isla markaana la dhaqan gelin doono heshiisyo iskaashi amni iyo dhaqaale oo la saxiixay 20 sano ka hor. wada hadallada wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Saudi Arabia waxaa xigi doona in madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi uu booqan doono ama uu booqdo magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia. madaxweyne Raisi ayaa aqbalay casuumaad uga timid boqorka Saudi Arabia Boqor Salman waxaa sidaasi isniintii xaqiijiyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Iran Mohammed Mokhbar. sugu yara ayaa naga daawanaysan nagalana socotaan saaxiib.